gudoomiyaha ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed mudane Cadceed Cismaan ayaa ka warbixiyay waxqabadka ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray burburkii dawladda dhexe kadib. mudane Cadceed ayaa sheegay in ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed uusan burburin isla markaana hawlihii ururku ay ka socdaan magaala madaxda iyo gobolada dalka isagoo si gaar ah u xusay ururka iskaashatada gaadiidka oo aan burburin marnaba hawlihiisuna ay si habsalmi leh ay u socdaan. sida gaadiidka kale waa shaqeynayaan marna ma kala tegin gobolada in la soo maro oo la aado oo dadku isdhexgalaan ay u kala xiraan gobol kooxeed waxaa suura geliyay ilaahay waa isku iskaashatooyinka gaadiidka oo ku fara adeegay in gaadiidka laga leeyahay gobolada mataqaanaa ka baxsan gobolka iyo kan in la isku dhafo loo kala bedelo shaqaalaha mataqaanaa gobolka iska soo jeeda la saaro baabuurka meeshaan laga leeyahay kaasna la saaro shaqaalaha gobolkaas laga leeyahay si baabuurta u wada socdaan oo loogu difaaco mataqaanaa dalkaa la kala xirxiray oo ummadda badeecadaha iyo waxba gaarsiiyaan. kadib way shaqeynayeen dekeda gaadiidka ka shaqeynaya iskaashataasoo ka shaqeynayay ilaa burburkii ilaa waqti kasta xilligii 2014 waxaan bilaabnay 2012 markii dowladdii Xasan Sheekh inaan usoo aruurino iskaashatooyinka kale gaadiidku waa joogay sida beeraha kale quudka iyo adeega qiimaha iyo xoolaha mataqaanaa farshaxanka iyo warshadaha yaryar lixdaas urur uu ka kooban yahay horta urur guud ka kooban yahay. ujeedooyinka loo aasaasay ururka iskaashatooyinka ayuu ku sheegay difaaca gaadiidka iyo ganacsiga u kala goosho gobolada iyo degmooyinka dalka. gudoomiyaha ururka iskaashatada Soomaaliyeed ayaa xusay qaybaha ku midoobay ururka iskaashatooyinka kuwaasoo kala ah ururka beeraleyda kaymaha iyo xoolaha gaadiidka farshaxanka iyo warshadaha yaryar iyo quudka iyo adeega. mudane Cadceed ayaa tilmaamay in ururka dib loo howlgeliyay sanadkii 2016 kadib markii golaha wasiiradu ansixiyeen dib u howlgelinta ururka iskaashatada Soomaaliyeed tan iyo muddadaasi wixii ka dambeeyayna wax badan ay qabteen. iskaashato waa dad isku darsaday maalkooda iyo muruqooda oo ka madax banaan siyaasad iyo dawlad balse wada shaqeyn kala dhaxayso ujeedadiisuna tahay sidii dalka ay u gaarsiin lahaayeen horumar dhaqaale ayuu yiri mudane Cadceed Cismaan. waxaan dad isla shaqeeya waa urur madax banaan oo dawli oo leh shakhsiyad sharciyeed marka wasiir aan hoos tagno iyo mataqaanaa agaasimaha hoostagno iyo dowladda hoostagno waxaa naga dhexeeya wada shaqeyn naga dhexeysa. gudoomiyaha ayaa xusay in tiirka koowaad ee iskaashatadu tahay wax soo saarka dalka si looga maarmo kaalmo shisheeye. gudoomiyaha Cadceed ayaa guulihii ay gaareen kuwa ugu muhiimsanaa ku sheegay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO ay kala hadleen in dalagga beeraleyda Soomaaliyeed laga iibiyo isla markaana la joojiyo cuntooyinka dibadda laga keeno. gudoomiyaha ururka iskaashatada Soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan dhul boob xoogan oo lagu hayo dhulka iyo dhismayaal ay leeyihiin ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed isla markaana aysan jirin cid wax ka qabanaysa. mudane Cadceed ayaa xusay in ururka shaqooyinkiisu uu lahaa ay ka mid ahay soo dejinta iyo sahaysiinta maraakiibta taasoo hadda la siiyey dad kale oo aan xaq u lahayn sida uu hadalka u dhigay. gudoomiyaha ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed ayaa ka codsaday madaxda hay'adaha dawladda inay u hoggaansamaan amarkii ka soo baxay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa inaan la dhisi karin lana bixin karin dhulka danta guud. ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay ganacsatadu inay ku ekaadaan hawlahooda ganacsiga isla markaana ay faraha kala baxaan hawlaha dawladda isagoo ku eedeeyay ganacsatada qaarkood inay yihiin kuwa carqalad joogto ku haya hawlaha dawladda.